qofka quraanka xifdiya jannada waxa uu ka gelayaa darajaadka ugu sarsareeya xadiiska warinaya Cabdullah ibn Umar ee uu soo saaray Abu Daawud, Tirmidhi iyo Nisaa'i ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yuqaalu lisaaxibi alqur'aani iqra' warqa warattil kama kunta turattilu fi dunya faina manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uha. waxaa lagu odhanayaa qofka markaasi qur'aanka xifdiya ee saaxibulqur'aanka waxaa lagu odhanayaa iqra' qur'aanka akhri, warqa kor markaasi jannada darajaadkeeda sare kor u fuul, warattil kala dhigdhig oo tartiili qur'aanka kamaa kunta turattilu fi dunya sidii aad ahayd markii aad adduunyada joogtay mid u tartiiliya, faina manzilataka halka aad ka degayso jannada cinda aakhiri aayatin taqra'uha waa aayadda u dambaysa ee aad akhrido. marka qofkii xaafidka ahaa ee ahlu qur'aanka ahaa aakhiro marka la tago ee jannada la galo darajaadka la korayo waxaa lagu odhanayaa qur'aanka akhri oo tartiili oo kor aayadda u dambaysa aad akhrido halkaad ku joojiso halkaasi ayaad markaasi jannada ka degaysaa. waxa uu yidhi ibnu xajar alhaythami baa wuxuu yidhi alkhabaru almadkuuru khaasun biman yaxfaduhu can dahri alqalb laa biman yaqra'u bilmusxaf. waxa uu yidhi warkaa la soo sheegay waxa uu khaas u yahay qofka qur'aanka kariimka xifdisan maaha buu yidhi qofka ka akhrinaya musxafka maaha. marka qof waliba intii uu qur'aanka xifdisanaa ayuu markaasi kor u korayaa. marka qofkii xaafidka ahaa ee soddonka qur'aanka xifdisanaa jannada waxa uu ka gelaya darajaadka halka ugu sarreysa.